iyada oo muddo toddobaad laga joogo xilli hoggaanka dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland ay ku baaqeen in xildhibaanadaasi labada gole qaran ee ka soo jeeda gobolada Awdal Salel iyo Gabiley ku soo xaroodaan magaala madaxda caasimadda gobolka Awdal ee Boorama 28ka bishan si looga arinsado arrimaha gaarka iyo danaha beelahaasi ee ku aadan xukuumadda kulmiye iyo mustaqbalka xaaladda kala xubnaha kaga jira in ay yimaadaan magaalada Boorama haddii aan la yiraahdo bisha 28keeda bishan aynu ku jirno bisha 28keeda halkaas aan isugu nimaadno halkan wixii talo iyo tusaale aan isu sheegno wixii tabasho aan isu sheegno halkan inay noogu yimaadaan baan idinka haddii ay yihiin labada gole qaran intii kaga jirtay gobolada magaranaysa Awdal iyo Salel in la iswarsado iyo golaha dhaqanku inay iswarsadaan maadaama la ku beeganta xaalad kala guur oo doorashooyin umuur la galayo in la iswarsado oo ay isku waranno waxa isweydiin mudan ujeedada ka dambaysa iyo baaqa ka soo yeeray hoggaanka dhaqanka sidoo kale waxa iyaduna meesha taala su'aalo kala duwan oo dadweynuhu iska weydiinayaan baaqa hoggaanka dhaqanku halka uu ku dambayn doono iyo sida looga soo jawaabayo iyadoo ay wax waliba ay ku xidhan yihiin xildhibaanada si ay uga soo jawaabaan baaqaasi ka soo yeeray hoggaanka dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland dhanka kale waxa iyaduna meesha taala siyaasadda xukuumadda xisbiga kulmiye ee waqti xaadirkan ku aadan gobolada galbeedka Soomaaliland waxaana jira dareeno siyaasadeed oo xasaasi ah hoosna uga socda gobolada galbeedka Soomaaliland waxaana iyadana la isweydiinayaa inay xukuumaddu ogolaan doonto baaqa ka soo yeeray hoggaanka dhaqanka ee ay ugu yeedhayaan xildhibaanada labada gole qaran ee ka soo jeeda galbeedka ee ka tirsan golaha guurtida iyo golaha wakiilada Soomaaliland iyada oo ay jiraan tabashooyin suwan oo la xiriira xagga saami qaybsiga iyo deegaamaysi dareeno iyo dana siyaasadeed oo ay ka dambayso xukuumadda kulmiye ka wado 6 goobood ee ka tirsan degmada Lughaya ee ka xidhan doorashada iyo diiwaangelinta kuwaas ee xukuumaddu cod uga raadinayso musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi inuu mustaqbalka doorashada soo socotay inuu cod aqlabiyada ka helo waxay nagula hadleen oo yiraahdeen 6 goobood ee la in madaxweynaha looga footeeyo oo baarlamaankana looga footeyn ra'iisul wasaaraha looga footeyn laakiin madaxweynuhu kaliya looga footeeyo kelmadda jawaabteeda odayga xiliyada oo ahaa diblomaasiyadda qarsoon ee xukuumadda kulmiye ku aadan galbeedka ayaa ka wada dhaqdhaqaaqyo kala duwan loola hadlayo kuwaas iyo kulamo kala duwan ay ka socdaan magaalada madaxda caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa marka loo eego baaqan hoggaanka dhaqanka gobolada galbeedka ee ka soo baxay iyo mas'uuliyadda xildhibaanada golaha guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ay dadka qaar u arkaan inay kala fog yihiin xildhibaanada labada gole qaran ee bulshada gobolada galbeedka Soomaaliland ma aha kuwa inta badan isku xidhan waana ay yihiin kuwa marka ay dana siyaasadeed iyo arrimo kale ay yimaadaan ka wada xiriira horumarka bulshada goboladaasi galbeedka ma jirto wax taakula ama taageero oo ay xildhibaanadaasi labada gole qaran ay ka gacan geystaan ama taageero ama talo ay ka geysan karaan lama garanayo in xildhibaanadaasi ay ka jawaabi doonaan baaqa ka soo yeeray hoggaanka dhaqanka balse bulshada gobolka Awdal Salel iyo Gabiley waxay ka dhursugayaan jawaabta ka soo bixi doonta iyo dalabka ay xukuumaddu ka soo saari doonto shirkaasi degdega ah ee ay ku baaqeen hoggaanka dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland أحمد دريع التري ريا تيفي مقالة بورما